waxaa jiray xayawaano badan oo soo jiidasho leh oo gaar ah kuwaasoo dabargo'ay sanadihii ama qarniyadii lasoo dhaafay. Waa kuwan 5 ka mid ah xayawaanada dabargo'ay ee ugu caansan. Dodo waa mid ka mid ah shimbiraha dabargo'ay ee ugu caansan, waxayna u dhalatay amaba ay ku nooleed jasiiradda Mauritius ee ku taalla badweynta Hindiya, waxayna dabargo'day dabayaaqadii qarnigii 17aad sababo la xiriira ugaarsiga iyo burburka deegaanka awgood. Tasmanian Tiger ama shabeelkii Tasmania oo sidoo kale loo yaqaano Thylacine wuxuu u dhashay amaba caan ku ahaa Tasmania iyo New Guinea. Kii ugu dambeeyay ee loogana wuxuu ku qurbaxay amaba uu ku dhintay isagoo ku xiran meel keligii dadkuna ay u soo daawasho tagaan sanadkii 1936. waxaana loo arkaa mid ka mid ah noocyadii ugu dambeeyay ee xayawaanada dabargo'ay. Woolly mammoth wuxuu ahaa xayawaan weyn oo qaraabo la ahaa maroodiga casrigan marka loo eego sida ay isugu muuq dhawaayeen, waxayna caan ku ahaayeen qaybo ka mid ah dhinaca waqooyi ee waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Aasiya. Intii lagu jiray xilligii barafka waxay dabargo'een qiyaastii 10,000 oo sano kahor. waxaana la sheegay in sababaha ay u dabargo'een ay u badan tahay inay ugu wacan tahay isbeddelka cimilada iyo ugaarsigii joogtada ah ee bini'aadamku ku hayay xilligaasi. Bisada saber-toothed oo sidoo kale loo yaqaan Smilodon waxay ahaayeen kuwo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ugaarsatada ama ugaarta ilkaha saliimka leh. waa qaar ka mid ah naasleyda taariikhdii hore ee ugu caansanaa. noocyo kala duwan oo bisadaha saber-toothed ayaa noolaa intii lagu jiray xilligii Pleistocene, waxayna dabargo'een qiyaastii 10,000 oo sano kahor. Quagga wuxuu ahaa nooc ka mid ah dameer farowga oo kasoo jeeday amaba caan ku ahaa Koonfur Afrika, wuxuuna noqday mid dabargo'ay dabayaaqadii qarnigii 19aad sababo la xiriira ugaarsi iyo deegaanka oo ku xumaaday. Quaggii ugu dambeeyay wuxuu ku dhintay amaba uu dhintay isagoo meel lagu xiray sanadkii 1883. kuwan waa qaar ka mid ah xayawaanada dabargo'ay, waxaana jira xayawaano kale oo badan oo dabargo'ay oo taariikh soo jiidasho leh iyo sheekooyin xiiso leh. haddaba haddii aad doonayso in aad la socoto qaybaha kale ee sheekooyinkeena taariikhda ah, ku xirnow channel-keenan amaba na soo follow gare. mahadsanid walaal.